kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa ninka ugu qanisan Brighton oo cadeeyay inuu doonayo inuu iibsado Manchester United. Liverpool oo doonaysa sida ugu dhaqsaha badan inay xaliso mushkiladda ka haysta khadkeeda dhexe. Waxaan eegi doonaa wararka kale ka soo baxay suuqa muuqaalkeena inta bilaabin like saara sina share gareeysa asxaab badan ay u gaadho haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana fursad u noqoto qofka ugu horeeya ee muuqaaladii ay soo gaadhaan mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno runtii waxa saacadihii ugu dambeeyay wargeysyada ugu waaweyn qaaradda Yurub runtii la isla dhaxmarayaa in mid kamid ah maalqabeennada ugu qanisan Brighton runtii uu xaqiijiyay inuu ku jiro tartanka iibsashada kooxda Manchester United ee runtii bilihii ugu dambeeyay soo socday iska soo daba dhacayeen runtii dalabyo fara badan oo lagu sheegay in kooxda Manchester United lagu iibsanaya saacadii ugu dambeeyay waxa la sheegayaa mid kamid ah ragga ugu qanisan Brighton runtii maalqabeenkani oo lagu magacaabo Sir James Ratcliffe ay waxa leeyahay runtii ninkan waa xaqiijiba runtii waxaan u waramay wargeysa The Time runtii ku xaqiijiyay inuu doonayo kooxdan iibsado systemka iibsashadiisuna runtii ay socoto sidoo kale waxa lagu soo waramayaa wariyaanka kooxda Manchester United Jadon Sancho runtii oo toddobaadka soo socda oo Manchester United runtii ku soo laaban doono wali waxa leeyahay koorba kulanka Arsenal ninkan waa ku soo laaban doona tababarka buuxa ee kooxdan runtii muddooyinkii ugu dambeeyay kooxda ka maqnaa mar lagu waramayo ninkan oo xanuun ku maqnaa runtii inta ugu badan ba wararka xaqiiqda ah ee ninkan uu ku maqan yahay hoos loo dhigay mar fad badan ba oo tababaraha Ten Hag runtii ninkan uu ka waramay oo sheegay ninkan xanuun ku maqnaa haddaba kulanka Arsenal koor wariyaankan waa ku soo laaban doona kooxda Manchester United waqti dheerna ayaa ugu dambeysay kooxdani runtii maanta oo kale sanadkii hore Thomas Tuchel tababaraha kooxda Chelsea ee waxa loo magacaabay tababaraha ugu fiican dhanka ragga kadib markii uu ku guuleystay Champions League iyo UEFA Super Cup sanadkiisii ugu horeeyay lama oran karaba 6 bilood ee ugu horeeyay runtii champion ayuu hantay muddadii joogay waxyaabo fara badan oo kooxdani u qabtay intii waqtigu iska diyaa kooxda Chelsea wariyana fara badan ayaa hadda haystaan 9 wariyahan haystaan haddana waa ku shaqaysan yihiin runtii waxa lagu waramayaa runtii qalad ugu weyn ee kooxda Chelsea ay gashay oo ahaa in Thomas Tuchel iskerido oo 6 bilood gudahood champion ugu qaaday qalad weyn ay ka gashay uqubadiisa waa haysta wariyana fara badan waa haystaan suuqa sidii ugu bixinayaan lacag runtii waan ka warqabnaa wariyaha fara badan Arsenal loo wariyaa markay ku garaaceen Modric iyo waliba Joao Felix safkooda runtii si xawli u socdo imka lagu soo waramayo in xiddigooyin kale ay doonayso safkeeda ay ku soo xoojiso sanadka hormaanto kale waxa markii tababaraha ugu fiican kooxda Chelsea tababariisa markaas Thomas Tuchel loo magacaabay sidoo kale waxa lagu soo waramayo kooxda Real Madrid ay runtii doonayso la wareegto oo ay caashaqday xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Manchester United ee runtii daad yar leh ee sanadkan fursad la siiyay ee Garnacho ninka reer Argentina waxa lagu soo waramayo Real Madrid ay doonayso runtii suuqan ba aad u la xiriirinayay oo lagu soo waramayo Real Madrid in dayrkan ay doonayso inay ka faa'iideysto runtii waxa uu kamid ah xiddigihii wareeriya Manchester City kulankii dhawaa ninkan oo bedel ugu soo galiyay ayaa runtii ka shaqeystay Manchester City runtii bedelka Ten Hag uu sameeyay oo noqday bedel guuleystay dayrkan ba Real Madrid ayaa kamid ah kooxaha xiiseynaya doonaya in Man United ay ka dafaan xiddigana daad yar Liverpool ayaa waxay doonaysaa in la soo saxato xiddiga khad dhexe si khadkeeda dhexe mushkilada weyn sanadkan uu ka haysto ay u xaliso sanadkan Liverpool khadkeeda dhexe waa furan yahay khadkeeda dhexe runtii waa furan yahay sanadkani oo runtii khadkeedu dhexe ma muuqdo xiddiga khadka dhexe iyo runtii kooxdan ba mushkilad weyn ayaa ka haysta dhankaasi khadka dhexe waxa la yiraahdaa si sida dhaqsaah ay u xaliso mushkiladda khadkaasi dhexe ka haysta waxay doonaysaa in la soo saxato xiddiga muddada dheer la xirnay ee Jude Bellingham iyo waliba xiddiga muddooyinkan ba aad loo xiriyay Liverpool ee Matheus Nunes xagagan ayna doonaysaa inay ku xoojiso khadkeeda dhexe maaha waxa leeyahay waa la saxantaa xoog waxay saarsan labadaas xiddig in khadkeeda dhexe kooxda Liverpool ay ku xoojiso xaqiiqatan wararkaasi ayaa saacadii ugu dambeeyay soo baxay in labadan xiddig ba diirada saarso oo qorshayaal u degtay ay kula saxanayso kooxdani Liverpool soo kale waxa soo baxaya Bayern Munich ee waxa isha ku haysaa in heshiis ay la gaarto xiddig kooxda Chelsea ee weerarka ee Kai Havertz
ninkani oo runtii aad muhiim ah kooxda Chelsea ay waxa leeyahay waxaaba indhaha ku haysa kooxda Bayern oo doonaysa laftigeedaba in ninkan Jarmalka ay safkeeda ku xoojiso ay safkeeda runtii ay ku sii xoojiso warkaas soo baxay Bayern kay afartis ay indhaha ku hayso way macquul tahay inay qaadan karto soo kale waxa leeyahay Barcelona ayaa si dhab ah u qorsheynaysa waxay waa rabtaa waxay doonaysaa Barcelona in la saxato laakiin hadda waxa leeyahay si dhab ah ay qorsheynaysaa inay qaabilaasha ay kula soo wareegto ay kay Gundogan ninkan khadka dhexe ee reer Germany ay kooxda Manchester City dhamaadka xilli ciyaareedka ay kooxda Barcelona doonaysaa runtii inay la saxato Barca sanadii ugu dambeeyay suuqeeda xidiga freega ay gaadgaadisay midkan waa mid kamid ah xidiga freega runtii liis dhan oo xidigeen wada heshiiska wada dhamaanayo Barca waa qorsheenaysaa suuqa soo socdana 6 bilood oo kaliya ee uga haray heshiiskiisa oo Manchester kula sigo waa sugaysaa Barcelona ikay Gundogan si dhab ah ay qorsheynaysaa in khadkeeda dhexe ay ku soo xoojiso sanadka soo socda warkaasi waa dhab Barcelona dhab ay ka tahay in ikay Gundogan ay qaadan karto soo kale waxa lagu soo waramayaa Carrasco ee waxa leeyahay waxa uu doonayaa inuu ku biro Barcelona diyaar ayuu yahay xitaa isku bedelka runtii la qorsheynayo isaga iyo Depay si ugu wareeg lahaa garoonka Camp Nou ninka Barcelona waa rabaa waxa uu doonayaa kooxdani inuu ku biro warba soo baxay dhawaangii ugu dambeeyba in Carrasco iyo Depay labada kooxood ee Barcelona iyo runtii Atletico Madrid ay qorsheynayaan in labadoodana xidig heshiis dhaafsi ay kula kala wareegi karaan runtii waxay doonaysaa in Joao Felix bedelkiisa uu noqdo ninkan Depay Barcelona waxay doonaysaa Carrasco aad ayuu xiiseenayaa in kooxda Barca oo ku soo biiri karo runtii warkaas ayaa iguna soo baxay Manchester United ee waxay Inter Milan wada hadlo kala yeelatay saacad daafaca midig ee reer Holland ee Daniel Dumfries oo runtii lagu qiimeynayo ama kooxda Inter ay ku qiimeynayso 65 milyan in laacibkani ay ka takhalusto ugu yaraan wax ka yarayn doonay inay runtii laacibkan kaga baxo kooxda wada hadalna waa socdaan runtii Dumfries Manchester United waxay doonaysaa in Inter ay kala soo wareegto runtii ninkan aad waa xiiseynaysaa runtii maalinka Briana kulmo waaweyn ayaa jira ha noqoto horyaalada Premier League horyaalada qaaradda Europe horyaalka Premier League Serie A runtii kulmo kale oo maalinka Bria runtii ciyaari doona waxa kamid ah Crystal Palace iyo Manchester United oo 12 habeen dambe runtii foodistari doona runtii waa kulan xiiso leh oo Manchester United ay fursad u haysato in horyaalka Premier League ay kaalinta labaad runtii ay kula wareegi karto oo runtii hal dhibic kooxda Manchester ka hayso inkastoo kaalinka afraad ay hadda fadhido 8 dhibcood ay wada leeyihiin kooxda Newcastle oo laftigeedu diiday in kaalintii laga wareego runtii waxay fursad haystaa in labada kooxood ee Manchester City iyo waliba Newcastle United oo kaalinta saddexaad iyo labaad ka horeeyo inay dhaafto runtii kulankaas waa kulan baaqi ah inkastoo kooxaha kale uu baaqi yahay sidoo kale kulan weyn waa sugaya runtii maalinka Bria fursadaasi weyn ay kooxdan Manchester United haystaa in horyaalka runtii ay kula wareegi karto kaalinteeda labaad oo runtii Manchester United guriga waa galay waxa bay qorsheynaysaa hadeer inay u tartamto in horyaalka soo kale kulanka kale ee weyn Super Coppa Italia waxa weeye in Derby Milan runtii Inter Milan iyo waliba AC Milan ayaguna maalinka Bria foodistari doona waana Super Coppa Italia runtii 10 habeenimo ay habeen dambe foodistari doonaan labadani kooxood Inter Milan iyo AC Milan Derby Milano iyo waliba kulankaas Crystal Palace oo mid kamid ah kulamada waaweyn ee maalinka Bria ayna ku raaxaysan doono kulamadaasi ay maalinka Bria ku raaxaysan doonaa Derby Milano iyo waliba Crystal Palace iyo kooxda Manchester United oo foodistari doona horyaalka Premier League warkan ciyaar wanaagsan saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale والسلام عليكم.